kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baa dhagaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada mid ka mid ah qodob wareedyadii aad nooga barateen halka aad nagala socotaanna waa Wardhowr Media. cutubyo ka tirsan ilaalada xeebaha waddanka Turkiga ayaa khamiistii maanta soo badbaadiyay 22 qof oo muhaajiriin iyo qaxooti isugu jira oo ay badda uga tageen ilaalada xeebaha Greega si ay ugu dhintaan badda Aegean. iyadoo ciidamada ilaalada xeebaha ee waddankaasi Greega ay sii wadaan ku xadgudubka xuquuqul insaanka asaasiga ah iyo sharciga caalamiga ah ayaa ilaalada xeebaha Greega waxa ay dhawaan ay badda ay ku silciyeen 22 ruux oo magangalyo doona kuwaasi oo saarnaa dooni nooca shaaga la buufiyay ah si ay dib ay ugu celiyaan dhulbadeedka Turkiga kadib markii matoorka doontii ay saarnaayeen dadkaasi ay ka go'day. muhaajiriinta iyo qaxootiga oo ay ku jiraan 16 Siiriyaan ah, 2 Falastiiniyiin ah, 2 Masaari ah, mid Liibiyaan ah iyo mid Yemeni ah ayaa u sheegay mas'uuliyiinta Turkiga in ay soo qabteen ilaalada xeebaha Greega kuwaasi oo si xoog leh ku saaray dooni caag ah oo ay kaga tageen badda markii ay ku sugnaayeen. muhaajiriintan ayaa isku dayay in ay gaaraan jasiiradaha waddankaasi Greega labadii bilood ee la soo dhaafay. ilaalada amniga ee Turkiga ayaa badbaadiyay ku dhawaad 170 magangalyo doon ah xeebaha Aegean ee u dhaxeeya dalalka Greega iyo Turkiga 9 dhacdo oo kala duwan kadib markii ay Greegu ay ku khasbeen dadkani muhaajiriinta ah in ay galaan dhulweynaha Turkiga. Turkiga iyo Greega waxay ahaayeen meelaha ugu muhiimsan ee loo raadsado magangalyo doonka qaxootiga iyo muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan Yurub si ay nolol cusub ay u helaan gaar ahaanna kuwa ka cararaya dagaalka iyo silaca dalalkooda. Ankara waxay horay ay u martigelisay ku dhawaad 4 milyan oo muhaajiriin Siiriyaan ah iyo in ka badan oo kale oo wadamada adduunka ka soo kala jeeda waxayna sheegtay inaysan xamili karayn mowjad kale oo dad muhaajiriin ah. jawaabta Greega ee ku aadan dadka isku dayaya in ay galaan waddankaasi iyagoon haysan ogolaansho hore waxay ahayd mid adag iyadoo ugu yaraan 3 muhaajiriin ah ay ku dileen ciidamada ammaanka ee waddankaasi Greega xadka ay la wadaagaan Turkiga iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah dadkaasi la dilay kuwii la socday oo xaqi ay lahaayeen la dulsiiyay iyagu. saraakiisha badda ee waddanka Turkiga ayaa sheegay horaantii bishii hore in ilaalada xeebaha Greega ay isku dayayeen in ay quusiyaan doomaha tahriibayaasha iyo qaxootiga ee ku sii jeeday jasiiradaha Greega iyaga oo rasaas ku furay dadkana ku garaacayay ula dhaadheer. gabadfallada iyo xadgudubka ay ciidamada ilaalada xeebaha ee waddankaasi Greega ay u geysanayaan dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga oo laga duubay muuqaal video ah ayaa waxa aad u cambaareeyay bulshooyinka caalamka. waad ku mahadsan tahay dhageysiga qodob wareedkan oo aad ka dhageysanaysay Wardhowr Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar, haddii aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato ama click aad siiso si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee aanu soo gelino channelkan.